salaamullaahi calaykum halkani waa dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan warkaanana waxaa qayb ka ah dowladda Mareykanka oo xayiraad ku soo rogtay 14 qofood oo Soomaaliya kuwaas oo lacag u ururi jiray kooxda Al-Shabaab iyo shirkado la ogaaday in gacan saar la leeyihiin kooxda qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo lacago ka dalbaday dowladda federaalka Soomaaliya si ay Al-Shabaab la dagaalamaan qasaaro xoogan oo ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo cid ka dambeysay oo la ogaaday lamadii ugu dambeeyay ee magaalada Jigjiga ku dhaxmaray madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan qodobadaas iyo qodobo kale oo daahsoonaya ku daawan doontaan warka dunida TV oo diyaar garooba haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqato hamogana subscribe saarto YouTube-kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran Xasaneed dowladda Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogtay shakhsiyaad Soomaaliya kuwaas oo la sheegay in ay yihiin dadkii lacagta u ururi jiray kooxda Al-Shabaab magacyada shakhsiyaadkan Mareykanku uu ku soo rogay xayiraada ayaa dad badani waxa ay sheegeen in ay yihiin kuwo hoos u dhigi kara taageerada dhinaca maaliyadda ee kooxdu ay helaan waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa waxa ay shaacisay shirkad fududeysa dhaqaalaha iyo hubka kooxda kuwaas oo door hogaamineed ku dhaxlay Al-Shabaab isla markaasna u qaabilsan xiriirka kooxda iyo shirkadaha Soomaalida ee lacagaha baadda ah qaada shabakadan oo xayiraada lagu soo rogay sida ay waaxdu sheegtay ayaa ku howlaneed soo iibinta hubka fududeynta dhaqaalaha iyo sidoo kale qorista askarta ee kooxda oo dagaalanta marka laga soo tago in hogaamiyayaal ka tirsan Al-Shabaab u fududeeyaan sidoo kale xiriir toos ay la sameeyaan saraakiisha Al-Shabaab ee horey Mareykanku liiska argagixisada ugu daray waaxda maaliyadda waxay diiradda saaraysaa aqoonsiga iyo carqaladeynta shirkadaha sharci darrada ee Al-Shabaab ee ka howlgala bariga Afrika ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay kaaliyaha xogayaha maaliyadda Mareykanka ee dhinaca argagixisada iyo sirdoonka maaliyadda waxaan sii wadi doonaa inaynu tilaabo ka qaadno ka dhana soona ogaano cidda soo gelisa hubka sharci darrada iyo dhaqdhaqaaqa maaliyadda ee dhaqaale ururinta Al-Shabaab ee xiriirka la leh kooxda Al-Qaacida waaxda maaliyaddu waxay sheegtay in Al-Shabaab ay maalgelisay dadaalada Al-Qaacida ee caalamka oo idil ay ku jirto inay lacag u qaybiso kooxaha kale ee Al-Qaacida xiriirka la leh taasi ku dartay in Al-Shabaab sanadkii ay soo xareyso dakhli dhan $100 milyan oo ay ka hesho ila dhaqaale oo kala duwan sida ganacsatada shakhsiyaadka canshuurta la saaro badeecadaha iyo fududeynta ganacsiyada sharci darrada dakhliga kooxda ayaa taageeray awoodda kooxda hoggaanka iyo weerarada ka dhanka shacabka Soomaaliyeed Al-Shabaab waxa ay horey u qorsheysay inay kala qaybsanaada ay ka dhex abuurto dowladda federaalka iyo xogaga mucaaradka Muqdisho si ay dib ugu dhigto doorashada federaalka haddaba magacyada shakhsiyaadka Mareykanka uu shaaciyay ayaa kala ah Cabdullaahi Jeeri oo sanadkii 2021 si sharci darro ah u soo geliyay gudaha Soomaaliya Cabdikaafi Cabdulle Khaliif Cadaale oo asaguna la sheegay in uu taageerayo kooxda isla markaasna uu dhaqaale u ururinayay shakhsiyaadka lagu soo rogay cunaqabateynta waxaa ku jira Xasan Afgooye oo asaguna ka mid ahaa shakhsiyaadka sida weyn la sheegay inuu dhaqaalaha ugu ururinayo kooxda Cabdi Kariin Xuseen Gaadaale iyo sidoo kale Cabdi Samad ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka kale ee dowladda Mareykanka ay ku soo rogtay xayiraadaha Cabdiraxmaan Nuurey ayay sheegtay dowladda Mareykanka inuu ka mid yahay shakhsiyaadka la duldhigay ee dhinaca dhaqdhaqaaqa maaliyadda iyo xayiraada shakhsiyaadkan ayaa la sheegay in sidoo kale lagu daray
sida ay soo saartay wasaaradda maaliyadda. Ilaa iyo 5 xubnood oo kooxda la ogaaday inay hoggaan ka tirsan ay yihiin, kuwaas oo kala ah Maxamed Xuseen Salaad, Axmed Xasan Cali, Suleymaan Mataan, Maxamed Cali Dabaas. xubnahan ayaa shabaab u qaabilsan sida sharci darrada ah ee looga keeno hubka waddanka Yemen. Mareykanku waxa uu xayiraadan duldhigay shakhsiyaadkan uu arko inay yihiin inay sare u qaadayeen ka ganacsiga hubka sharci darrada ee shabaabku ay helaan iyo dhaqaalaha. Khasaaro culus ayaa ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, iyadoo warar kala duwan ay kasoo baxayaan. ugu yaraan 10 qofood ayaa ku geeriyooday, tiro kaleetana oo dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib markii uu qarax ka dhacay xaafadda Ceelqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. goobjoogayaal ayaa u sheegay warbaahinta in khasaaruhu uu dhan yahay ilaa iyo 10 ruux, halka tiro intaasi ka badanna dhaawacyo kala duwan ay kasoo gaareen. muuqaalo iyo sawirro warbaahintu baahisay waxay muujiyeen khasaaraha goobta ka dhashay, iyadoo burbur xooggan uu soo gaaray gawaari ay adeegsanayeen dad rayid ah. dhaawacyadii ka dhashay qaraxaas ayaa la geeyay qaybo ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. hay-adaha ammaanka dowladdu waxay sheegeen inay baaritaano ku hayaan qaraxan oo ahaa mid soo booda wadada geesteedana la dhigay. kooxda Al-Shabaab ayaa fulisay qaraxyada noocyadan oo kaleeta ee lagu dhibaateeyo dadka rayidka ah. dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in Al-Shabaab oo lagu xanuujiyay dagaalada lagula jiro ee ka soconaya qaybo badan oo ka tirsan gobolada dalka ay kordhiyeen dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka iyagoo beegsanaya. xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu soo waramayaa in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dalbadeen dhaqaalo ay ku doonayaan inay kula dagaalamaan Al-Shabaab. xubno ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada ayaa la sheegay in lacago fara badan ay dalbadeen, iyagoo ku andacoonaya inay u baahan yihiin lacagtaas haddii laga doonayo inay la dagaalamaan kooxda. madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa doonaya inay dhaqaale ka sameeyaan la dagaalanka Al-Shabaab, waxayna dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbadeen inay bixiso dhaqaale fara badan oo dagaalka lagu dhaqaajiyo si meesha looga saaro Al-Shabaab oo muddo badan dhibaato ku hayay dadka deegaanka. maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa lagu soo waramayaa inay dowladda federaalka ku codsadeen dhaqaalo ay sheegeen inay qayb ka yihiin la dagaalanka kooxda. magaalada Jigjigan habeenkii xalay ahaa kulamo ayaa ka dhacay u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar. waxaa sidoo kale jiray kulamo odayaasha dhaqanka uu la yeeshay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. kulamada waxay ahaayeen kuwo iswareysiya, waxaana odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uga mahadceliyeen socdaalka uu ku tagay magaalada Jigjiga. ra'iisul wasaaraha oo sharaf loo sameeyay ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay si dhab ah ula shaqeyso maamulka dowladda deegaanka si wax looga qabto dhibaatada argagixisadu ay geystaan, kuwaasoo dhowaan weerar ku qaaday deegaano ka tirsan dhulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, halkaasoo khasaare kala duwan uu ka dhashay. warka ka daawanaysan Dunida TV waageynta sidaas nabadgelyo.